السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا فردوسي إسماعيلة وأنا ورسن شيخ محمد. ما أنتو حندين ودنا برنامج كي ها حلنت قويسك كسو هذا اللي إن بدن قيب بدن مركا إن شاء الله وقيب كم إذا عاوك هلنا نلا دقيستا نلا الصعدة إن شاء الله. من تي بدن ولا قصة قرين وأركاي أصحاب من نسوي ديسة أو ده برنامج كاس كصعدة ها محاض وديسين مالها ميدا سودينين مركا ولا إسكيرة مشغولة إن شاء الله همودين إن نشوتشني هذا مشغولنا وصودنا صح ما شاء الله تبارك الله. هذا لبعض يدي ما أنتي هرنا كهذي هذه حلنت قويسك وارن قويسكو ضدكو أساس قبل شذوية وباش dadka soo bilaabmeen horta waxaan leenahay marka hore dadku markay isguursadaan meel degan adduunyo ilaahay waxa horta ugu fiican inay dadku isfahansan yihiin aad iyo aad in ay xallin karaan waarun wixii dhibaato ah ee dhexdooda imaato aad iyo aad mareerkooda ku soo korodho ama carruurta dhankooda uga timaado ama faamiligaba dhankiisa ka timaado in badan waxaa arkaysaa inuu faamiliga dhankiisa xitaa ka imaado dhibaatooyinka dadka aad iyo aad runtii brambur ay soo wado kowsar keef ay furi doonto oo dood ah kowsar waa salaameynaa oo dood ah oo waxaa jiro oo ah maxaan ku dhahdaye ragga iyo dumarka keebaan eed u saarinaa yacnaa eedda markaan u saarinayna aan saa leenahay ma aha inaan leenahay raggii baa xun ma aha inaan leenahay dumarkii baa xun laakiin waxaan leenahay baraaruga oo wixii dhexdiina ah xalliya idinku aad iyo aad si aysan dadka kale idin gaarin. mid kale su-aal baan ku weydiin lahaa maxaad kula talin lahayd dhalinyarada inta ayna isguursanin maxaad odhan lahayd maxay sameeya maxaad kusoo talagala oo yacni maxaad qofku waxbaa usii qorshaysan markaad hadda safar aaday sidoo kale waxbaad qorshaysataa waxaad safarka la aadi lahayd wax kasta oo ilaahu cadayna ha ahaade waxbaad diyaarsataa markaa dhalinyarada marka ay ama damac dhexdooda yaallo oo rabaan inay mustaqbal iyo reer samaystaan maxaad odhan lahayd ood kulana talin lahayd? maasha allah tabaaraka allah waa su-aal aada u wanaagsan. horta dadku intaysan isguursanin intaan guur ka dhicin intuu arrinta culus aysan imaanin oo ah in faamiladii iyo reerkii la isu geeyo oo gabadhii durbaba jacayl ay la soo boodo wiilkana durbadiiba u jacayl la soo boodo waxaa ka wanaagsan in kalsooni meeshii la keeno. gabar aadan ku kalsooneyn wiil aadan ku kalsooneyn sirta aad ku sheekaysataan ay bannaanka taalo saacada gudahood waxaad isu sheegtaana social mediahu ay saaran tahay maanta midaad la sheekaysataba aad facebooka sawirkeeda saaraysid gabadhuna wiilkii ay maanta la sheekaysataba isla daqiiqadiba sawirkiisa ay facebooka saarayso ku faanayso leedahay ama ninkan waan la socdaa ama waan la sheekaystaa ama waan jeclahay. intay taasi imaanin oy dhicin oo kashifka intaa la eg la is istaajinin waxaa ka horeysa kalsooni. kalsoonidu waa shay qaali ah aad iyo aad markaad kalsooni qabtid baad qofka naftaada u dhiibi kartaa. kalsooni adigoo qabin reerkaas ma dhisi kartid. gabadha maxaa laga rabaa intee in la eg baa la rabaa inay wiilka barato wiilkana maxaa la rabaa intee in la eg baa la rabaa inuu gabadha barto. gabadhan dabeecado badan bay leedahay midba maalin bay la soo baxaysaa aad iyo aad adoona iska baraninna ha ku degdegin. wiilku dabeecado badan buu leeyahay u qarsoon adoo iska baraninna gabar yahay ha ku degdegin. walaa waa si fiican baad uga hadashay waa run waxaa fiican inaad qofkan baratid aad iyo aad salkiisa haa erayga qofka afkiisa ka soo baxayo miisaan markaad saartid
waxaad ogaanaysaa qofaad naftaada ku halleyn karta inuu halkaa kaaga soo baxayo iyo qofaad naftaada ku halleyn hadda karin waxaa inuu kaaga jirta soo mataqaanaa dad wax xiise la yidhaahdaa jirta indha ku garaad leh ha noqonin waasaas xiisaaba jira hadda xiisahaasaa qofkiiba wuxuu indhatirayaa future ka dambeeya waad aragteen hadda bad biyo buluugay leedahay aada bay qurux badan soo ma baddaas waa inaad ogaatid haddaad dhex geshid waxa kaaga imaan karo inay ku liqi karto sax inay wax kasta ku dhex jiraan xawayaan iyo wax kasta oo liqitaan ku cuni keliya kara maaha bahal baa ku jiro Haa. waxbaa ku mudi karo haa waxbaa ku cuni karo hadhow badi maxaa baa kaaga kula tegi imaanaya karto. wayna tira laakiin badda hadday kuusoo hilaacdo oo buluugga iyo quruxdan iyo sii gashid aad sii geshid hadhow aad isbadbaadin weydid soo naftaadii kumaada qamaarin haa laakiin waa inaad sida baddaasoo kale kasoo qaadid baddaa wax kasta ku dhex jiraan oo kale waa inaad kasoo qaadid sax waa inaad usii hub qaadatid war saas hadday kugu dhacdo hadduu wax kusoo weeraraan sideeba maxse uga bixi karaa haa hadday baddan inay ku liqdo ay damacdo maxaad samayn kartaa haa laakiin xiisaha hore iyo quruxdaas yee ku indhatirin aada iyo aad maxaa ka dambeeya waa inaad ogaato guurkuna waa sidoo kale waa inaad mustaqbalkaaga iyo futureka anigu xiisahan been baan u arkaaba Aad iyo jacaylkan hore aada iyo been baan u aad. arkaa tan kale waxaan leeyahayba firdowsoy hadaa hadalka ku watee haa gabadhu markaad rabtid inaad wax jeclaatid haa jacaylku waa wax jiro waa run la isuma diidano waa run annagu dad baan jecelaha haa annaguna waana jecelyihiin waa run jacaylku waxaan diidanahay ma aha aada iyo aad laakiin jacaylku wuxuu leeyahay ka fiirsasho badan waa run midda kale jacaylku goormuu waa inaan kala fahanaa waxa xiisaha ah iyo jacaylka dhabta iyo ah. jacaylka dhabta ah qofkan waad xiisaysay walaa qofkan uu labis qurxoon yahay ama uu kan labiskaan uu tegi doonaa waxaan adigu saa uma dhalaali doontid 2 sano kadib waxaa laga yaabaa inaad hooyo noqotid oo aad jirkaaga total isbedelaba markaa aawa dhalaalkii quruxdii way tegayaan maxaa meeshii yaalla laakiin hadhow in la iscaayaa imaan doonto. wanaaggii haddaad qofka wanaag kusoo dooratay wanaaggaas ma dhammaanayo haa laakiin haddaad xiiso iyo dhaldhalaal laysku soo doortay dhalaalkii xiisi way guureen way guurayaan hadhowna aflagaada imaanayso waad Haa. guuran tahay waad ballaaran iyo tahay adiga oqdad ku dishay haa saan baa tahay Markaa heblaayaa kaa fiican war hebel baa adigana kaa fiican war labiska hebel baa kaa qurux badan may iyo gabdhaha adigu kalsooni gabaray darra ku dhacdo. adigu gabaray ninkan agtaada joogo maxaad ku dooran waxaad ku dooratay eed shalay ku soo raacday haddaad berri ka weydo haddaad berri ka weydo waxaa lagaa rabaa inaad samir iyo dulqaad intaad samaysid aad dhahdid bal anigu maxaan bedeli karaa haa midda anigu kale maxaan bedeli karaa oo samayn qofka karaa marka aad guursanaysid waa inaad ilaahay tala saarataa waa inaadan qofkan dhaldhalaal aadan ku raacine waa inaad dabeecad ku raacdaa waa inaad qofnimadiisa ku raacdaa diin waa inaad kow lambar waa inaad diin ku raacdaa kow waa inaad qofnimadiisa ku raacdaa qofkan gabdhahan hadda la hadlaya oo ninkan ninku Wuu ku dabari bixin kara karaa. haa nin dabeecad fiican ma yahay nin hadhow yacnihii mas-uuliyadaada qaadi kara maya ilan bini aadan baa tahay gabdhahu waad aragtay way xishoonayaan marka ninka isku cusub yihiin waxaas way dhammaan haddaad cayb badnayd iyo haddaad hadal badnaydba hadhow waad la soo bixi doontaa sax waxaa tahayba ninkiina hadhow la soo bixi doonaa laakiin maxaa taasoo dhan hadduu qofku dadku dad wanaagsan ay yihiin waxaasoo dhan waa la isugu dulqaadan waa la isbaran hadhow wanaagay tegaysaa sax laakiin hadhow marka aadna sheeko kale lasoo bixin sheeko kala soo baxo daxiise una aad isku soo raacdeenna wuu dhammaanayaa oo qadiyad la-aanana wixii way dhammaanayaan laakiin haddaad qadiyad lahaydeen oo dad islaama waa inaad been aadan ku fikirin waa inaad ku fikirtaa guurkan hadhow inay ilmo ka dambayn doonaan inuu yahay haa waana inay ilmo ka dambayn doonaan inaad waalid noqon doontaan waalidka markaad noqoto ilmahaaga seed u korsan doontaan ninkan hadduu saas noqdo sideebaad uga bixi doontaa aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad ninkiina waa dumarku aad bay u dabeecadooda u gadisanta si u yihiin yacni ma dumarka ma lihi way fiican yihiin ama wayna fiican yihiin ma lihi laakiin gabadhii way wallici kartaa way xanuunsan kartaa hormoonkeeda isbedeli karo jirkeeda dabeecadaheeda isbedelaysa saad kusoo guursatay ma ahaanayso saad markaad isla sheekeysanayseen ma ahaanayso waa inaad wax kasta ku tala gashaa sax waxay markaad ku tala gasheen waabaad ugu soo tala gashay markaas barayskuguma noqonayso aada iyo aad laakiin hadhow markaad sanad iyo 2 wada joogtiin oo xiisihii dhammaado xiisi hadduu dhammaado dee jacayl baa soo hadha ahay
waxaan dadka jacaylku wax dhamaada maaha hadduu xiisuhu dhamaado jacaylku ma dhamaado dhabta ma dhamaado dadkan la hebel baan jecel ooyayaana been waa xiise xiisuhuna waa dan runta haddii aan laga tegin dantuna maxay tahay ama qofkan qurux baad ku raacday ama maal baad ku raacday ama labis baad ku raacday ama maal baad ku raacday waxaad leedahay ninkasta dad guursan leed nolol fiican baad ku noolaa noloshaasaa laga fikirayaa marka yaa waa un dan weeyaan mogtahay ninkan hadduu labis qurux badan yahay uu kaale aragaya wallahi billahi haddaad ninkan intaad raacisid waa lagugu ammaani lahaa nin qurux badan baa la socdo baa lagu dhihi lahaa waa un dantaasunbaad future ka leedahay haddii gabadhana sidoo kale dad gabadh qurux ku raacday quruxdan way dhammaani waa gabadh qurux badan buu guursaday hebel halagu dhawan baad ku raacday mogtahay laakiin kumaad raacintii dhabta ahayd gabadha maxaad ku dooran lahayd marka gabadha waa inaad ku dooratid gabar kartile inay noqoto gabar degan inay noqoto gabar dabeecadle inay noqoto gabar diinle inay noqoto gabar asturan inay noqoto gabar wanaageeda runtii aad adiga markaad aragtid aad isleedahay way ku cajab gelinaysaa wanaageeda qoftan waa qoftii runtii noloshaada wax ka bedel lahayd gabadha wanaagsan ninka ragga way bedeshaa gabadha wanaagsan ninka ragga waxay ka soo saartaa nin raga oo dhab oo wax qabsan karo oo magac leh oo meel ka soo jeedo ammaanta beenta aan hala iska joojiyo gabdhaha lagu waalayo waxaan leenahay markaad farastiba isguursanaysaan oo isshukaansanaysaan bal dhabta u daadaga hadalreebta u daadaga inta kale hadallada kala reebta wax kasta oo fiican gadaal baa loo dhigta maxaa loo dhinjaa iska soo hormarina wax kasta iska dhamaynina gurihiina la taga wanaag iyo wax kasta insha allahu programka waan soo badin doonaa insha allahu ilaaha la tala saarto wax kasta oo la qabanayo biidni illaahi raxmaan ilaaha la tala saarto awlaad iyo futureka imaanaya ha laga fikiro anagu insha allahu de wixii ilaahayna garansiiyo unbaan ka hadlaynaa ma aha inaan anagu idinka fiican nahay fiicnin anagu ma sheeganayno khibrad ma u lihiin laakiin waxaan ilaahayna garansiiyo wixii maskaxdeena markaa kusoo dhacay walaalihiin u gudbiyo unbay naga tahay aad baan idin salaaminaa kal iyo laab baan idin salaaminaa bismillaahi alkariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo ah tiim guul iyo gobonimo